Hamogaan oo ha ka maqnaan hoyga qurxinta iyo daryeelka Marwo Beauty and Cooking. Waxaad ka heli doontaa wax kasta oo ku raali geliya. Hamogaan oo ha ka maqnaan Marwo Beauty and Cooking. Waxaad ka heli doontaa cunto nafaqo leh iyo qurxin tayo leh oo herbal ah. Hoyga qurxinta iyo daryeelka Marwo Beauty and Cooking. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan aad u salaamayaa asxaabta ku xulan Marwo Beauty and Cooking. Marka koobaad Allah ayaa mahad leh, marka labaadna asxaabtayda quruxda badan leh. Maanta maxaan inoo wadaa? Waxaan wadaa kalluun fresh ah. Kalluunkani maasha Allah waan soo nadiifiyey, waan soo dhaqay, si qurux badan baan soo dhaqay. Khal iyo liin iyo milix ayaan ka soo dhaqay. Idinka sheekayn maayo kalluunku tayada uu leeyahay, laakiin waxaan rabaa inaan wax yar idinta taabto, waayo kama giyooni haddaan is idhaahdo hadda faa'iidooyinku leeyahay soo koob ma soo koobi karo. Laakiin wax yar ayaan idin guud marayaa oo anigana muhiim ah inta igu xiran ama asxaabtayda ama ehelada ama familka. Markaan idin leeyahay ama ehelada ama familka, asxaab dadka inta igu xiran waa familkayga iyo eheladayda, maadaama aanu halkan ku midownay YouTube channel-kan Marwo Beauty aanu asxaab ku nahay. Alaabtan waxay saas ayaan hadda u soo jeexjeexayaa. Sababta aan u jeexjeexayana waxay tahay in xawaashka iyo dhanaanku lafta iga galo. Kalluunku caruurta ayuu u fiican yahay, dadka waaweyn ee waayeelka ayuu u fiican yahay, hooyada uurka leh ayuu u fiican yahay, qof kasta oo ibni aadana ayuu u fiican yahay, qofka ilooshinyaha leh ayuu u fiican yahay. Mid baan rabaa inaan waxoogaa ka taataabto xagga ilmahoo kale. Koritaanka ilmaha aad ayuu ugu fiican yahay xagga maskaxda, hadday tahay waxbarashada aad ayuu uga caawiyaa. Waayo ilmuhu wuxuu noqdaa ilmo maskaxdiisu active tahay, ilmo maskaxda ka koran ama maskaxdiisu masha Allah dhammaystiran tahay. Intaa ka bacdi halkan waxaan ku hayaa xawaashaadkii, malqacadkaas ayaan isticmaali doonaa insha Allah bismillaahi kariim. Wada aragtaan waxaan isticmaali doonaa oo kale half toon ah haddii Allahu idmo. Sidoo kale waxaan rabaa inaan isticmaalo filfil yar, Allahumma salli calaa Maxamed, basbaas cas ama basbaas xabashi ama mamid. Sidoo kale kanuna waa masala fish baa la yidhaahdaa, maraq digaag ama jumbo, malqacad olyoliifa ah. Olyoliifadu waxay ka mid tahay faadka caafimaadka qaba. Wax badan waxbana kuma yeelayso, badan lama isticmaalo. Malqacad liin dhanaan ah. Intaas ayaan isku qasi doonaa insha Allah. Kalluunkeenii aad arkayseen aan soo maydhay ayaan deetana daahiriya shamis marin doonaa. Inaba caadi maaha siduu soo baxo. Asxaabay wuxuu faa'iido leeyahay markaynu ka daba tagno. Hooyada uurka leh ayuu aad ugu fiican yahay, maadaama ilmaha caloosha ku jira oo borotiin badan u baahan yahay. Kalluunkii markaan sidaas u soo dhigay, saxankiisii soo saaray, xawaashkii ayaan marin doonaa insha Allah. Meelaha jeexjeexan ayaan ka gelin doonaa siduu lafta uga galo. Inaba caadi ma aha. Asxaabay isugu roonaada, naftiina ugu roonaada, ilmaha ugu roonaada. Halkaad kiilo hilib ka soo iibsanaysaan, kiilo kalluuna ayaa ka caafimaad badan, ka tayo badan, ka tamar badan. Masha Allah. Inkastoo hilibka cadi uu fiican yahay isaga laftirkiisu oo labaduba fiican yihiin, haddana kalluunka laguma gaadho waxyaabaha maskaxda. Waayo omega 3 waxay ka mid tahay waxyaabaha kobciya ama koriya maskaxda. Waxaa laga helaana waa kalluunka, waa faadka kalluunka. Inkastoo kalluunka qayb ka mid yahay aad u si fiican yahay sida salmon-ga oo kale, qofkii heli kara. Masha Allah. Kalluunka dhinacii kale ayaan hadda u rogay oo aan ka marmarinayaa sidii hore si la mid ah.
waan wada gaarsiinayaa madax, il, af, meel uu diidaya male, meel uu diidaya male. xawaashkii sidaas ayaan usoo marmariyey. waan ku dhammayn doonaa inta yar ee ku hadhayna insha allah. la socod wanaagsan. asxaabteyda aad iyo aada u mahadsantihiin. asxaabtii hore iila joogtay waxaan leeyahay 1001 jeer aad iyo aadaan idinku mahad celinayaa. qofan ibni aadanka u mahad celinini ilaahayna uma mahadnaqo sababtoo ah halka jananku taagan yahay idinkay soo gaarsiiyey. idinka la-aantiin waxba ma noqdeen, halkanna maan imaadeen. waxaan idin leeyahay jananka hore u sii wada. waa janankiinii. waxaa ka heli doontaan wax badan. asxaabta cusub ee igu soo biirtay waxaan idin leeyahay welcome. kuma khasaari doontaan Marwa Beauty and Cooking. wax badan oo aa ka heshaan baa heli doontaan. soo dhawaada. sidaas ayuu dabka ku aaday. halkan waxaan ku hayaa waa basal, xabad basala oon si yaryar dhuudhuuban usoo jarjaray. sidoo kale halkan waxaan ku hayaa khudrad, waa digirtii yaryarayd, tii dhaadheerayd. sidoo kale waxa weeyaan spinaat ama maxaa la yidhaahdaa kaarood. sidoo kale waxaan halkan dhinacan ii yaala waa baradho aan soo dhaqay oo biyihii ku dhex jirta. digsigan ayaan haystaa ii diyaar ah. insha allah basasha ayaan kusoo shubi doonaa. waxaan samaysan doonaa wax yar oo eesh calaaya, qada yar oo fudud oo simbal ah oo caruurtu maasha allah ka hesho, oo adiga aan hawl badan kugu ahayn, oo waxaan kugu danahaaga aad ka qabsan karto. cunto macaan oo qurux badan oo caafimaad lena ah ayaan rabaa inaan samaysto. waxaan ku shubayaa waa 2 malqacadood oo saliid ah. malqacad saddexaad kuma dari doono. saliidda badani caafimaadka uma fiicna, mana wanaagsana. intaas ayaan kusoo dalici doonaa insha allah. basasha marka aan soo dalaco sidaan usoo galo insha allah way la arki doontaan, waa ka heli doontaan. kolley anigu aad ayaan ugu haystaa, caruurteeduna u jeceshahay. baradhadii ayaan ku shubay. intaas ayaan isku yara daboolaya. markay isku dalacanto ayaan kusoo noqon doonaa insha allah. way dalacantay hadda, si qurux badan bay u dalacantay. haddana waxaan ku dari doonaa khudradii kale oo dhammaystiran. maasha allah waa ka heli doontaan si aan inaba caadi ahayn. khudraddu waa caafimaad. hadda halkan waxaan ku haystaa waa 2 xabo oon soo jarjaray. digsiga wax biyo ah ma taabsinin. 2 malqacdood ee saliidda ahayd iyo khudradii baan isku yara dalacay. haddana waxaan ku daray 2 xabo oo xabuuba oo aan soo dhilay. sidoo kale halkan waxaan ku haystaa waa xawaashaadkii, waa toon, waa khamuun iyo geeda adari, waa huruud, waa kabsare, waa filfil, waxa weeyaan maraq digaag. intaasna huguf baan ku siiyey, waa aragtaan. daboolka ayaan u jeedi doonaa insha allah. markaan saa isu dhexgeliyo wax biyo ah kuma shubi doono. sidaas ayaan ku daboolay. dabkana waan u gaabiyey oo 4 ayaan u joojiyey. maasha allah siday kusoo bislaato waad ila arki doontaan. waad aragtaan say kusoo bislaatay. wax biyo ah kuma shubin, wax biyo ana may arkin. halkan waxaa ii yaala niskiilo baasta makaroona ah. waan isku soo rogan doonaa suugada dalac bilaashka ah iyo baasta makaroonadii waan isku soo wada daray. maasha allah maasha allah. ma ka sheekeyn kartid. baastadan isticmaalaya waa nooca xaaxeeyada ah, maaha baasta kale. sida xaaxeeyada ayay u samaysan tahay. aad ay caruurta u jecel yihiin, maadaama aniga inta badan caruurteeda cunin suugada. ma jecla suugada, laakiin markaan isugu rogo aan isku walaaqo way jecel yihiin. waayo baastada isku dhex kariskaa bay jecel yihiin. marka caruurta yaryar oo dhani ma kala garato in laysku wala rogay iyo inay isku dhex karis tahay. suugada dusha laga saaro ayay kolley aniga aad u necab yihiin caruurteedu baastada. marka waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada Marwa Beauty and Cooking iyo
waxaad ka heli doontaan wax kasta oo idin raalli geliya. Ee ha moogaanina oo ha ka maqnaanina. Waa taas baastadiisas ayaan isu soo dhexgeliyey. Sidaa quruxda badan leh ayay soo baxday. Sidaa quruxda badan leh ayay soo baxday. Maasha Allah. Ilaahayow intaan haysana si inta haysatana u siyaadi. Annakana noo calaf oo noo kadab. Sidaas sidoo kale fideogeeni markuu soo dhamaaday cuntadeeni ah soo diyaariyey, kalluunkeeni dabka ka soo saaray. Sidan ayuu soo baxayn. Maasha Allah, maasha Allah. Dhadhankiisa waa la yaabay. Qofkii dhadhamiyey baa sheegi kara. Sidaas ayuu soo baxay. Aad ayuu u macaan yahay. Una soft yahay. U jilicsan yahay. Manuu qalalin oo qalal xargaga oo dhuunta ka xaganaya muu noqon. Qoyaana ma aha. Hilib macaan oo maasha Allah ayuu leeyahay. Waxaan kugu iri hooyo daryeel naftaada iyo ilmahaaga. Intaas ayaa muhiim ah. Hooyo kasta waxaan kula talinayaa inay nafteeda iyo ilmaheeda ka warhayso. Waayo ilmuhu waa u bixi bari. Nafteeduna haddaanay daryeelin waxba kama qaban karto ilmaheeda. Baastadii maasha Allah sidaa quruxda badan leh ayay soo baxday. Waad ila aragtaan. Waxani waa kaaroogii oo si heer sare u bislaaday. Cuntaduna waxay ku fiican tahay inay iyadu dheecaankeeda ku bislaato in la biyeeyo kuma fiicna. Intaan fideogan xiga isugu imaanayno waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Fi amaanillah.